noloshaadu waxay ahaanaysaa mid aad iyo aad u qurux badan markuusan jirin cid wax kaa sheegaysa, cid wax kaa og markuusan jirin. qasri ay ku dhex ooynayso gabadhu ayaa waxaa ka fiican oo ka khayr badan mudulka iyo cariishka iyo daashka ay ku dhex faraxsan tahay oo nolol wanaagsan ay ku haysato. bini-aadanka dartiisa naftaada u gubi, waayo quraxdu darteedna ayay nafteeda u gubtay. haddana weli waxaan jecelnahay dayaxa. ceeb ma ahan inaad ku dhacdid oo aad jeclaatid qof aan ku wanaagsaneyn jaceylka oo waxba aan ka garanayn, laakiinse waxaa doqonnimo ah in aad sii wadid oo aad sii joogtaysid jaceylkiisa, inaad weli jaceyl la sii wado. taas ayaa doqonnimo ah. way ku daandaansanayaan si ay u soo saaraan xumaanta gudahaada ku jirta. markaas waxay ku leeyihiin, war adiga miyaa kan sidan maad ahayd? laa yaa casiizi, haadaa laysa ana, may saaxiibkaygow, kaas aniga ma yihi. haadaa maa turiiduhu anta, waxaase waa waxaad adiga doonaysay. haddaad dhaqdid dhuxushu kun jeer weligeed caddaan mayso, xitaa kun jeer haddaad dhaqdid weligeed caddaan mayso. sidaasoo kale dadka qaar ayaa qulubtooda saa ah, si walbo aad wanaag ugu samaysid weligeed isbedeli mayso, mana caddaanayso. ugu dambeyntii waxaa guulaystaa dadka niyooyinka wanaagsan leh, si walbo ay u badnaato khasaaraha kasoo gaara. laakiinse waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad aragtid bilowga inaad guulaystaan dad aan wanaagsaneyn, laakiinse dadka adkaysiga leh ee niyada wanaagsan leh ayaa ugu dambeyn guulaysanaya oo guul gaarayo. weligaa noloshu waa halgan, ha isdhiganin ee dadaal, rabbigaana kaalmayso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.